الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد kumanaan iyo kumanaan ka mid ah dadweynaha magaalada Burco ayaa maanta isugu soo baxay tukashada salaada Ciid al-Adha iyadoo goobta ugu weyn ee lagu tukanayna ahayd garoonka Al-Amsay Stadium ee magaalada Burco tukashada salaada Ciid waxaa dadweynaha magaalada Burco kala qayb galay madaxda maamulka gobolka Togdheer madaxda degmada Burco mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda diinta iyo awqaafta ee Somaliland khudbadii halkaasi laga jeediyay inta badan waxay u badnaayeen wacdi iyo waana ku aadan in wanaagga la isfaro xumahana la iska reebo ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah culimada diinka gobolka Togdheer aynu isugu soo baxnay marka ugu horeysa Ilaahay subhanahu wa ta'ala kulligeen badambigeena ha dhaafo مصايبك وريغينا إلهي هينا دافيو بلايد وريغيسنا إلهي هينا دافيو سبحانه وتعالى إلهي بام مهدله إنه غفر كذي عذركي أدونك ساميي waxaan u taaganahay oo aan u kacay kelmadda al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar ilaahay wuxuuna amray oo uu yiri isagoo amar inagu siinaya barya maaha wal takum minkum ummatun yad'una lil khayr ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaa'ika humul muflihun bu ilaahay subhanahu wa ta'ala macna waa inaan leedinka helaa khasab weeye dad diinta wanaaga ugu yeeraya xumahana ka reebaya dadka waa amar weeye waxaan salaamayaa dadka muslimiinta ah oo dhan adduunyada meel kasta iyo qaarad kasta ay ku nool yihiin waxaan leeyahay ciid mubaarak ciidda ilaahay ha inaga aqbalo maayarka degmada Burco Maxamed Muraad farasaabka gobolka Togdheer Maxamed Diiriye Xayd ayaa gabagabadii halkaasi ka hadlay magaalada habeenkii waa ogtihiin koonayaasha waliba madmadow hawlo badan baa ka jira magaalada waxa la keenay maanta bileys cusub oo waliba tababar heer sare ah qaba oo aragteen magaalada habeenkii way roondeeyaan bilayskaasi waxa uu ku amran yahay waxa allaala wixii nabadgeliyo darro ama anshax darro ama laga shakiyo inay qabtaan alla shaqeeyo waxaan halkan dadweynaha reer gobolka Togdheer uga soo gudbinayaa salaantii madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland uu iga gaarsiiya dadweynaha ku ciidaya gobolka Togdheer haday tahay degmada Burco iyo haday tahay meelaha kaleba waa Bashiir Xaaji Ibraahin wararka Hon Cable TV Burco magacaygu waa Suldaan magacaygu waa Seeraar isku si ayaan u hadalaa isku sina waan u libisanaa isku midna waanu nahay anigu se waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warmaahay run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi ma aha maxad mar hore igu sheegi weyday fikir hadal oo hadaalin maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Soomaaliland ama bishoo dhan ku hadal $5 oo kaliya Samtel shirkadda dadweynaha